Bismillah, alxamdulilah, ilaah mahad iskale walaalyaal meel walbo joogtaan soo dhawaada. Insha Allah maanta ilaaha ku mahadsan waxaan annaga oo caafimaad qabna aan bilaabaynaa chapterkii labaad ee maadada biology galaaska form 4ka. Waxaana lagu magacaabaa endocrine system. Insha Allah ilaah waxaan ka rajaynaynaa insha Allah buug oo idil in uu nagu dhammaysto caafimaad qabta. Waayo ma yara hawsha iyo duubista iyo shaqada la qabanayo ma yara real marka laga hadlayo aniga oo shaqooyin badan ay ila xiriiraan oo daalan habeenka ayaa sometimes soo dubay chapter 1 oo kale subaxii oo kale anoo howlo badan ay yaalaan haddana wax aan duubayay marka saa darteed marka insha Allah waana sii wadi doonaa insha Allah waan ku dadaali doonaa haddii Ilaahay idmo hadafkay ugu weyn waxaa waaye in la helo janaal ay bulshada Soomaaliyeed gobol iyo soo kale iyo magaalada Muqdisho ba ahaatay iyo soo kale Soomaaliya qaybaheeda oo dhan ha ahaato ay ugu xiran yihiin cilmiga hadda manhajka ah gaar ahaan labada nimaado oo aniga aan hadda bixiyo dugsiyada sarena aan ka dhigo aan rabo inaan ardayda marka iyo dadka bulshada Soomaaliyeed ay ku taxayin waxaan kaloo aad iyo aad ugu farxay waxay tahay ani hadafkii waxay bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaan in ay kala socdaan oo ay helaan janaal ay macnaha ay ku tiirsadaan oo koow ay ka dhigayihiin ama janaal aqoon ay u raacdaan gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya dad badan oo ka mid ah bulshada ayaa igala soo xiriiray aad iyo aad baan ugu farxay dhiirigelin badan way noqotay waayo dadkaasi gobolada joogo waxay u baahan yihiin cid caawisa qudhooda ay u baahan yihiin gaar ahaan gobolka Gado oo dad aad iyo aad u badan arday iyo macallimiin iyo dad badan ay kala socdaan janaalka aad iyo aad ayaan idiga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan ee ula socotaan insha Allah anigana waan dadaali doonaa maadaama aad i dhiirigeliseen aad iyo aad aan idiga mahadcelinayaa gobolka Gado galiis laguma tilmaami karo ee gobolada kale way jiraan laakiin gobolka ugu badan oo janaalka ay dadka kala socdaan waa gobolka Gado weeyaan insha Allah haddana waan sii wadi doonaa cashirkeen gudaha u sii gali doonaa su-aasha haddii aan ka jawaabo su-aalaha macalinow soo qortid chemistry form 3 waan arkaa commentiyada lagu soo qoro dadaa waxay soo qoreen biology form 2 horeyna waan u sheegay haddana waan sheegaa mar walbana waan ku celinayaa dad walba kusoo biiraan waxay rabaan in casharada kalaasyada kala wado waayo ustaad ani ma wadi karo waayo sababtoo ah form 4ka kan ah iyo form 1ka kan ah ayaa mas'uuliyadiisa u baahan in joogto loo soo geliyo marka aniga markaan soo gelina intaan waan soo geli karaa form 3 laakiin dadka baahida ugu badan meesha ay ka jirta waxay tahay galaaskan form 4 ko labadii maada ah iyo form 1ki galaasyada kale oo dhan form 4 marka la reebo galaasyada kale oo dhan baahida ugu badan waxay ka jirta waa chemistry-ga waa gaar ahaan form 1ki waa marka saa darteed marka galaasyada ay dadka u badayiin soo codsashada ay u badnaatay ayaan markii horeba inaan soo gudbiyo saddexdaasi qayb inaan soo gudbiyo aan go'aansaday maadaama intaas ay ugu badayiin baahiyooyinka ugu badan ay yihiin saa darteed marka taasna inaan idila socodsiiyaan rabaa dadka marka soo qoraayo sidaas aniga hadda waxaan ballan u qaadaa markaan intaas aan dhameeyo codeyn kalaan qaadi doonaa insha Allah janaalkan soo geli doonaa galaasyada marka dadka ugu bataan soo codsanayaan haddana aan ku xiji doonaa markay saddexdan qaybood inoo dhamaadaan oo ah biology form 4 chemistry form 4 iyo soo kale chemistry form 1 saddexdaas qayb markay inoo dhamaadaan haddana waxaan soo geli doonaa photos codeyn soo geli doonaa oo ah dadka meesha ay u badan yihiin in galaasyo badan soo geli doonaa marka meeshii loo codbata ayaan haddana insha Allah taxan u soo geli doonaa waayo 4 galaas 6 galaas hal mar ma wada duubi karaa isbuuc constant ma soo geli karo anigoo shaqooyin maalin iyo habeen leh haddana soo duubo marka saa darteeda ma samayn karo way ugu adag tahay intaan mas'uuliyadeeda ayaan laakiin insha Allah ku dadaalaa inaan ka soo bax 100% ama u dhafraxtahay marka insha Allah halkaas ayaan wixii is ogeysiis ah aan ugu baxayaa maanta waxaan galeynaa cashirkeena chapterkii labaad endocrine system waxaa raada qanjirada marinka la nidaamka qanjirada ee marinka la ayaa waxaa loo yaqaana endocrine system buuggan waxa ugu fiican yahay buuggii hore sawirro aad ku caawinaya ayuu leeyahay marka endocrine system qofku wuxuu isweydiin karaa maxaa raada endocrine system maxaase loo qeybiyaa ayaan rabnaa insha Allah inaan waxyar faahfaahin ka bixino insha Allah waan soo soconno kuwaasaan qori doonaa oo faahfaahin aan ka bixi doona insha Allah aan soo soconno insha Allah endocrine system waxaa raada marka sida caadiga aan ka hadlayno
horta endocrine intuu ka imaaday su-aasha kuwaad waxaa waa halkuu ka imaaday where is endocrine gland halkuu ka imaaday qanjirka loo yaqaan endocrine gland halkuu ka imaaday halkan uu ka imaaday glandis horta qanjir maxaa raada marka hore taasaan ku hormaraynaa gland waxaa raadaa is a modified type of epithelial tissue 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 specialized in production of secretion specialized in production of secretion specialized in production of secretion galaani marka waxaa loo yaqaanaa walaal qeex hadii loo dhahaa sidaana ku qeexaysa oo kooban galaan waxaa leenahay is a modified type waa nuuc horumarsan of epithelial tissue waa maxay nudayaasha dubka sare ah epithelial waa maxay dubka sare waa maqaarka sare ayuu leeyahay waa macnaha is a modified type waa nuuc sare of epithelial tissue ay leeyihiin nudayaasha dubka sare ay leeyihiin waa specialized kuwaas u qaas ah in production soo saarida maxaa leenahay in production soo saarida of secretion waa maxay wax soo dhiijinta kuwaasoo macnaha aad iyo aad uga horumarsan qaaska maxaa loo jeeda aad iyo aad uga horumarsan yihiin in production soo saarida of secretion waa maxay in production soo saarida of secretion wax soo dhiijinta ay aad iyo aad uga horumarsan yihiin waayo marka su-aasha waxaan u gudbaynaa marka su-aasha ah glandiska meeqa loo kala qaadaa endocrine gland meeshuu ka maasaan ogaano types of gland bal aan fiirina glandis are 3 glandis waxaa loo kala qaadaa 3 qaybood glandis are 3 glandis are 3 waa 3 qaybood glandis are 3 waa 3 qaybood guud ahaan marka laga hadlaayo midka koowaad waxaa loo yaqaanaa exocrine gland midka koowaad waxaa loo yaqaanaa exocrine gland midka labaadna waxaa loo yaqaanaa endocrine midka labaadna waxaa loo yaqaanaa endocrine gland midka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa midka koowaad waxaa loo yaqaanaa exocrine gland midka labaadna waxaa loo yaqaanaa endocrine gland midka kalena waxaa loo yaqaanaa mixed gland midka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa mixed gland ayaa loo yaqaanaa saddexdaas nooca horta guud ahaan loo qaybiyaa gland SCR3 waa 3 qaybood oo kala ah exocrine gland endocrine gland iyo mixed gland saddexdaas qaybood ayaa guud ahaan marka laga hadlayo loo kala qaadaa marka midka koowaad waxaa leenahay glandiska exocrine gland maxaa loo jeedaa marka macaan exocrine gland waxaa loo jeedaa qanjirada marinka leh ayaa loo jeedaa endocrine gland waxaa loo jeedaa qanjirada aan marinka lahayn mixed gland waxaa waaye endocrine uu u shaqeeyaa as exocrine uu u shaqeeyaa sida yaa ka mid macaan tusaale waxaa ka mid ah mixed waa maxay dhafan maxaa loo jeedaa isku qasan maxaa isku qasan macaan endocrine ahaan u shaqeeyaa exocrine ahaan u shaqeeyaa yaa ka mid tusaale haddii aan soo qaadano pancreas ganaca ka mid ah ganaca marka ay soo deynayso
gaar ahaan bile dhagtay markay soo daynayso waxay u shaqeysaa exocrine gland u shaqeysaa laakiin marka sida caadiga ah digestionka waxyaabahaasi kale markay qaabilsan tahay gaar ahaan markay waxyaabaha dhacanadan kale ay soo daynayso waxay u shaqeysaa endocrine gland u shaqeysaa marka waa qaabkaas exocrine gland waxaa la qanjirada marinka leh marinka leh antay maran macan tubes tubooyin ay leeyihiin oo ay maraan oo jirka ay leeyihiin ay ka maraan endocrine gland waxa waaye qanjirada aan marinka lahayn waayahe antay maraan marka macan maadaama aysan marin lahayn endocrine gland maadaama aysan marin lahayn antay maraan waxay maraan maadaama aysan marin lahayn waxay marayaan blood stream qulqulka dhiigga ay marayaan meeshaas wado u ah marka mixed gland waxaa loo yaqaanaa dhafane oo ah as endocrine u shaqeeya as exocrine gland u shaqeeya waaye haddii aan ka soconno waaye marka su-aasha muhiimadda leh aan isweydiinayn waxay tahay maxaa raadaa marka endocrine gland maadaama asi aan ku dirno maxaa raadaa endocrine gland marka define endocrine gland qeexa duldhana maxaad ku qeexi lahayd endocrine gland waxaan leenahay endocrine gland waxaan leenahay endocrine gland waxaan leenahay is a ductless gland is waa a ductless gland is waa a ductless gland ductless gland waaye endocrine gland waxaan leenahay is a ductless gland which secrete will secrete hormones will secrete kaasoo soo daaya hormones hormoona ayuu soo daayaa antoonu ku soo daayaa sida hadda aan idiin sharaxayba in the blood stream qulqulka dhiigga ayuu kusoo daayaa intaas kusoo koob waa tacriif yaroo kooban aadna xifdi kartid weeyaan in the blood stream waayahay garanay marka endocrine gland waxaa loo yaqaanaa is a ductless gland waaye waa qanjir marin la weeyaan wejkaasoo secrete soo daaya hormones hormoona ayuu soo daayaa in the blood dhiig ayuu kusoo daaya in the blood stream qulqulka dhiig ayuu kusoo daayaa kaasa waxaa loo yaqaanaa endocrine gland marka meesha wax kusoo daayo ductless waa macnaha tubeless waa tubo ma laha macnaha marka maadaama uusan tubo lahayn oo gland ductless gland uu yahay wuxuu soo daaya hormoonkaas wuxuu kusoo daaya qulqulka dhiigga waa macalno hormoon maxaa raada marka ereyga hormoon maxaa raadaa waa su-aal muhiim ah hormoon waxaa loo yaqaanaa waa kana asigan definition yara idiga diyaariy buugga horaa qoraay buuggaas tacriifka qoraay ayaana aada u qurux badnaa ha soo qaadanaynaa hadda hormones waxaa leenahay are organic compounds which are either proteins or steroids which are either proteins or steroids which are either proteins or steroids in nature marka hormones waxaa raadaa organic compound waa isku dhisyo nooleyaal ah which are either kuwaasoo noqon kara labada midkooda noqon kara waxaa proteino or amase steroids dufan ay noqon kara in nature sida rabbaaniga oo lagu arkay nature marka la waxaa waa lagu arkay maxaa waay ilaaha ku abuuray waa macnaheedu marka hormones waxaa leenahay are organic compounds waaye waa isku dhisyo nooleyaal ah which are either kuwaasoo macnaha kuwaasoo noqon kara proteino or amase steroids dufan ay noqon karaan waxay noqon karaa proteino ama dufan ay noqon karaa in nature sida rabbaani marka loo in nature marka la waxaa in waxaa lagu arkay in nature rabbaaniyo ilaaha ku abuur waa lagu arkay waa macnaheedu marka organic compound waa marka la maxaa loo jeedaa macaan sidal meeshaas waa isku dhisyo noolayaal marka la waxaa loo jeedaa carbon iyo hydrogen laga helo waa macnaha
kaarboon iyo hydrogen ayaa ku jira waa protein muxuu ka samaysan yahay kaarboon hydrogen iyo nitrogen uu ka samaysan amino acid ah marka waa kaasa steroids dufanta maxay ka samaysan tahay kaarboon iyo hydrogen ay ka samaysan tahay soma dufanta qudheedu waa sidaas marka hormones are organic compound way which are either kuwaas noqon kara proteins or steroids in nature sida rabbaani marka loo fiiriyo ilaahay uu ku abuuray intaas marka aan ka soo gudubno intaas ayaa qaybahan aan insha Allah ugu bixinaa waxaan toos u galeynaa insha Allah cashirkeena kale lesson 2 insha Allah waxaan toos ugu qaadanaynaa buug oo aan ku aqriino insha Allah halkaas waxaan ku ogaanay waxyaabo badan oo buug oo macnaha oo san qoraayo laakiin aad uu u fahfaahin laakiin si kooban aan qornay waayo marka insha Allah waxaan qaadanaynaa qaybta labaad hadii Ilaahay idmo oo buugan ka qaadanaynaa